dabayaaqadii sanadkii taga waxaa telefoon ii soo diray taliyaha amniga dal carabta Afrikaad ah oo aan isku dufcad ahayn markii ay dawladdii Soomaaliyeed Moscow tacliin igu dirtay inkastoo arday wada ahayn haddana markii loo dhiibay ammaanka dalkiisa waxaa dhowr jeer uu jeclaaday inaan ka soo tago dhulka Raafiyadeyn iyo bariga dhexe oo aan baraka ah una soo guuro Afrika barana aan noqdo waan iska diiday duruufo jiray welina jira dartood hase yeeshee 3 jeer wax ka badan ayaan leeliyay saraakiil lagu biirinayay xogaga ammaanka dalkaas bil ka hor ayuu igu marti sooray dalkiisa inkastoo da'da 70aad aan kor u dhaafay albaabka aakhirana aan taaganahay nolosha adduuna aan isaga qashdhacay haddana kama rajabeelin inaan arko madax Soomaaliyeed oo ugu yaraan dhaqan Soomaaliyeed leh kalena garanayo qofka Soomaaliga ah iyo kan aan Soomaaliga ahayn sida ay u kala mudan yihiin taliyaha aan iska diiday inaan magaciisa iyo dalkiisaba idin sheego wuxuu ii dhiibay qoraal ka kooban 5 bog oo laga soo xulay war ay soo tabiyeen saraakiisha wardoonka ee hay'adiisa nuxurku waxa uu ahaa doorashada Soomaaliya iyo sida dawladaha danta kale ay u arkaan dawladaha Itoobiya iyo Kenya waxa ay ka midaysan yihiin warwarka ay ka qabaan in la doorto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababta ugu weyn waxa ay tahay hamigiisa siyaasadeed waxa ugu horeeya xoogii dalka Soomaaliyeed arrintaasna masaalixda labada dal uma adeegayso sidoo kale shacabka ayaa xoog u taageersan haddii madaxweyne uu noqdana waxaa suuragal ah inuu ka faa'iideysto taageerada shacabka una sahlaysa in dawladdiisu ay bedesho aragtida xoogaga mayalka adag dawladda Imaaraadka waxay ku dadaalaysaa musharaxiinta daarood si Farmaajo looga hor istaago labada xil ee ugu sareysa dalka haddii xukunka uu qabto way adkaanaysaa in Imaaraadka Carabtu gacan ku yeeshaan maamulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida Masar si loola dagaalamo dhaqdhaqaaqa Ikhwaanul Muslimiin al-Islaax oo dhinaca waxbarashada awood ballaaran ku leh dawladda Masar waxay ku haminaysaa inay yeelato beeraha ku teesan webiga Shabeelle waxaa sacabsi ay ka qabtaa isbeddelka dhacaya war laga keenay Qaahirana waxa uu muujinayaa dhaqaalaha Masar in uusan u wanaagsaneyn in Farmaajo uu ku soo baxo doorashada sida awgeedna xukunka askarta ee Masaaridu waxay ka codsanayaan Imaaraadka in dhaqaale fiican ay ku bixiyaan sidii loo soo saari lahaa nin aan ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin daarood ah si aysan u suuro gelin in Farmaajo mar kale uu noqdo wasiirka koowaad sidoo kale wasiirkii waxbarashada Dr. Nuur oo reer Hiiraan ah ayaa lagu sheegay in dhawaanahani uu wada olole xoog leh laakiin lama sheegin cidda uu la siyaasad yahay fariimaha qaar ayaa lagu sheegay intii uu ahaa wasiirka koowaad 2010kii waxaa ka mid ahaa qorshihiisa in la xakameeyo cuntooyinka la soo dhoofsado lana kobciyo suuqna loo yeelo kuwa dalka laga soo saaro iyadoo la hirgelinayo warshado yaryar oo saamilay Soomaali ah ay leeyihiin haddii qorshahaas uu la yimaado mar kale waxa adkaan doonto rajada ay Masar ka leedahay Hiiraan iyo webiga Shabeelle beeraha ku yaal warqadaas sidoo kale waxaa ku sheegnaa baadiyow oo la sheegay in uu yahay nin ay Imaaraadka si xoogan u diidan yihiin madaxweynaha dhacayana ay isku reer yihiin waxaa sidoo kale la sheegay musharax Jibriil oo ay ku qeexeen inuu yahay mudadarrif cilmaani ah oo loola jeedo cilmaani xagjir ah inkastoo uusan lahayn khibrad uu ku hogaamiyo Soomaaliya haddana waxaa lagu sheegay inuu yahay nin dhalin yar oo ay wasaaradda difaaca Mareykanka ku leelisay waxaa suuragal ah inuu guuleysto marka lagu qiyaaso qoyska uu ka soo jeedo haddii ay xildhibaanadu u bataan in la rido madaxweynaha haatan jira isla markaana lagu bedelo nin ay isku qabiil yihiin waa ninka ugu dhow ee ku soo bixi kara marka lagu miisaamo qabiil haddii uu soo baxo waxa ay qabaan saraakiisha ammaanka ee Kenya in uu sii kordhayo iska hor imaadka hubaysan ee ku dhisan caqiidada taas oo ragga ammaanka Kenya ay qabaan in kaalin fiican ay ka qaadan karto geedi socodka Kenyaynta Kismaayo taas oo ay rabaan inay dhacdo saraakiisha Kenya 25 sano ee soo socota fariimaha Imaaraadka waxaa xoog loo adeegsaday ereyga faragelinta qaawan ee Turkiga inaan loo ogolaan Soomaaliya iyo ka faa'iideysiga suuqa Soomaaliya kaas oo yareeyay dalabkii Imaaraadka uga imaan jirtay tan iyo intii dawladda Turkigu ay faraha la soo gashay siyaasadda Soomaaliya sidoo kale Turkigu waxa uu kala dhantaalay awoodda iyo midnimada ummadda Carbeed sida awgeed waa in golaha iskaashiga qaliijku si wadajir ah ay u wajahaan qatarta Cusmaaniyiinta cusub fariinta ka timid geeska Afrika oo aan isiri warkaas waa Soomaalida ku xiran Soomaaliya ayaa ku sheegtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu yahay ninka nasiibkiisu uu siiyay in mar madaxweyne uu ka noqdo dalkan laakiin aad ay u adag tahay in mar kale uu helo cid maqasha doorashadana waxaa adag inuu ka soo gudbo wareegga koowaad Maslax Maxamed Siyaad riyadu ku jiray ayuu Shariif Xasanna ku jira doorkan ayaa lagu sheegay fariintan
waxaase aad ii xiise geliyey warbixin ka timid Addis Ababa dowladda Itoobiya ayay aad ugu adag tahay xilligan inay ka qiyaas qaadato cidda ku soo baxaysa doorashada Soomaaliya sababtuna waxay tahay xildhibaanada waxaa lagu soo doortay si ka duwan hanaankii hore waxaa meelo badan ka soo baxay dhalinyaro badan oo aan la aqoon badankoodna aan wax balwad ah lagu ogeyn sidoo kale waxay Itoobiya aaminsan tahay laaluushku inuusan shaqayn doonin marka la gaaro wareegga labaad waxaa suuragal ah haddii farmaajo wareegga labaad uu soo gaaro in ay adag tahay in la loodiyo xildhibaano badan oo dhalinyaro ah ayaa la soo doortay ha ku yimaadaan laaluush iyo lacag inta badan laga helay madaxweynaha hadda dhacaya iyo kuwa gobolada sidoo kale xildhibaano badan oo lacag ka qaatay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la ogyahay in codkooda ay siin doonaan cid kale isku duub Itoobiya waxay aaminsan tahay haddii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka soo gudbo wareegga koobaad in uu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socota xamarna waxa hubaal ah in markaasi ay geli doonto waji cusub doorashada Hargeysa ka dhaceysa ayaa ku sheegneed warbixintan sargaal Kenyaan ah ayaa u sheegay wardoonku inay ku farxeen Itoobiyaanka sidii loo galay Jamaal Cali Xuseen oo la aaminsan yahay inuu yahay nin ka dhalin yar ragga haatan baratamaya kana aqoon badan yahay dhaqaalaha gobolkana wax ka bedeli karo laakiin waxa uu sargaalka Kenyaanka ah yiri Ciise Masiixi ayaa Faysal Waraabe ku saliday asagoo hadlaya ayuu yiri ma og tahay Soomaaliya aqoon kama shaqeyso ee qabiil ayaa ka shaqeeya xitaa diintooda islaamka waxay ka jecel yihiin qabiilkooda sidaas ayuu yiri sargaalkan oo magaciisa lagu soo koobay Charles kana mid ahaa ciidamada ammaanka Kenya waxa uu sheegtay asagoo cabsan inuu ahaa ninka maamulaya guddiga xalinta khilaafaadka markii la dhisay baarlamaanka waxa sidoo kale uu sheegay in lacag ay taalo Soomaaliya ma og tahay in ciidanka Kenya ay magaalooyinka Kismaayo iyo Xamar jidka u dhaxeeya xireen ganacsatadana waxaa loo fududeeyay in toos ay alaabtooda u geeyaan muddo kadibna Kismaayo Kenya ay iska noqon doontaa ayuu yiri isagoo qoslaya ugu dambeyntii xildhibaanada haatan gacantooda lagu meeriyay masiirkii dalka waxaa saaran waajibaad culus waana in aad doorataan ciddii aad ku aamini lahaydeen in ubadkiina uu nolol karaamo leh u diyaariyo sidoo kalena beri dalka ku hogaamiyo marka qoortana loo laabo mana aha in aad laaluush gurataan dalkana aad dayacdaan haddiise sidaas aad samaysaan jiilka dambe ayaa idin nacaladi doona xildhibaanow codkaaga maanta ayay tala kula joogtaaye dalkan la duleeyo ugu hiili codkaaga هذا وينا عندك كلي ومن قرب من أيوه الجبال